ilaahay qof kasta oo uu abuurayba murti ayuu ka leeyahay si kasta oo aad xikmadda qofkaasi ku duugan u garan weydo ku kalsoonow oo rumayso inay xikmad dhab ah qofkaasi ku duugan tahay haddii aanu ilaahay inoo sheegin murtida ku duugan khalqigiisa sababta uu abuuray laba sababood oo asaasi ah ayaa ka dambeeya ta koowaad waa inaan ilaahay la weydiinin waxa uu samaynayo waana tallaabada koowaad ee uu addoonku u qaadayo dhanka ka edebsiga rabbigii la'aanteedna aanu iimaanka ansaxaynin midda labaad waa inuu ilaahay koreeyay inaga doonayo inaynu caqligeena ka shaqaysiino oo dhacdooyinka taariikhda aynu ku qiimayno si aynu uga soo xigano cashiro iyo cibrooyin aynu waaqicina ku daawayno maskax tuujinta fikirka falanqayneed iyo inaan jawaabaha la siinin ardayda wax baranaysa miyaanay ahayn in iyaga la siinayo masaaxo ay ku baaraan oo ay iyagu ku dahfaydaan aasaasyada tarbiyadan ugu maxaynu marka ay dadka sidaas samaynayaan ugu ammaanaynaa ilaahay marka uu sidaas masaaxadaas inoo siiyana aynu wax u tuhmaynaa ilaahay ayaynu ka magangalnay wejigiisa sharfan inaynu ka shakin